agaasimaha guud ee Somali National TV ee wadankan Ingiriiska. xafladan waxaa si wanaagsan u soo agaasimay ururka qaranka haweenka Soomaaliyeed ee wadankan Britain iyagoo markaas aad moodo in ay haweenka ay yihiin lafdhabarka bulshada Soomaalida isla markaasna inta badan ay ka dhex muuqdaan bulshada runtii aad inta aan xafladda runtii aan u guda gelin ma hadda aan markaas aan halkan ugu soo gudbiyay haweenka soo qabanqaaday xafladan ayaan waxaan doonayaa inta aanan u guda gelin barnaamijkan aan ugu talagalnay Aamina Muuse Weheliye in aan wax yar aan ka iraahdo taariikhda Aamina Muuse Weheliye. Aamina Muuse Weheliye waxa ay ku dhalatay magaalada Muqdisho ee wadanka Soomaaliya isla markaasna waxa ay wax ku baratay isla magaalada Muqdisho. Aamina waxa ay ahayd ama shaqada ugu horeysa ay bilaabay waxa ay ahayd dhanka saxaafadda isla markaasna jaraa'idkii ugu horeeyay u shaqeysay waxa la oran jiray qaran oo ay dad badan oo Soomaali ah ay og yihiin jaraa'idkaas oo inta badan ka hadlayay arrimaha bulshada. sidoo kale Aamina Muuse Weheliye waxa ay ahayd qoftii markaas qaban qaabisay isla markaasna habeysay laba jaraa'id kale oo lagu kala magacaabi jiray Hooyo iyo Laacib. ugu horeyntii jaraa'idka lagu magacaabo Hooyo waxa ay kaga hadli jirtay arrimaha bulshada isla markaasna inta badan waxa ay eegi jirtay dhibaatada haysata hooyada iyo sida ay markaas dhibaatada colaadaha ka dhacay wadanka Soomaaliya ay markaas dadka u saameeyeen. Aamina waxa kale ay ahayd qof aad u firfircoon siiba dhanka isboortiga waxa ayna sameysay jaraa'idka lagu magacaabo Laacib oo inta badan dhalinyarada Muqdisho ku nool ay aad iyo aad u akhrisan jireen journaalkaasi iyadoo mar waliba jecleed in dhalinyarada la isku keeno isla markaasna ay colaadu ay yaraato. Aamina Muuse Weheliye haddaan dib ugu soo laabto taariikhdeeda waxay u shaqeyn jirtay ururka qaramada midoobay qaybta lagu magacaabo UNESCO iyadoo markaas u qaabilsaneed dhanka waxbarashada. Aamina Muuse Weheliye waxa ay markaas tafatire ka ahayd raadiyo ay markaas UN ay leeyihiin qaybta UNESCO oo lagu magacaabo Civic Education isla markaasna ay training ay siin jirtay ama tababar ardayda markaas dhanka saxaafadda. Aamina Muuse Weheliye sidaas oo kaliya ma aysan ahayn anigoo markaas doonaya in taariikhda Aamina aad u dheer aan soo gaabiyo waxa ay qof fanaanada isla markaasna waxa ay ku dhex jirtay fanaaniinta siiba dhanka banaadiriga Aamina waxay isweydiiyaan Aamina ma wariye kaliya maya Aamina waxa ay ka qayb gashay ugu yaraan 35 ribaayadood iyo bandhigyo dhanka faneedka runtii wax yar ma aha isla markaasna Aamina muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay ka dhex muuqatay filimka lagu magacaabo Mirar Jecel oo haatan ka socda filimkaasi Mirar Jecel Aamina iyo asxaab badan oo hadda halkan ka muuqata ayaa waxa ay runtii ay soo bandhigeen wax runtii aad ugu dhow because waxa ay dadka ay tusayeen dhibaatooyinka ka taagan wadankan Britain siiba reeraha ragga haweenka isqaba aad moodo wadanka in colaad aad u sii badanayso isla markaasna filimkaasi qofkii daawada uu aad iyo aad u kaga bogi doono halkan waxa uu socdaa wadanka Sweden oo qaar badan ragga saleeyay ay halkaas ay jiraan. Aamina Muuse Weheliye dib hadda ugu soo laabto waxa ay muddo 11 sano ah ay ka shaqeynaysay raadiga caanka ama radioga BBC World Service qaybta af Soomaaliga iyadoo markaas ahayd wariye isla markaasna barnaamijyada sheegi jirtay. Aamina waxa ay ku caan ahayd iyadoo runtii ahayd qof aftahan ah isla markaasna qof ka dhageysta oo mar waliba uu jeclaa in uu dib u dhageysto. Aamina kuma aysan ekeen oo kaliya dhanka raadiyaha sanadihii ugu dambeysay waxa ay u shaqeysay telefishinno madax banaan siiba Universal iyo Home Cable waxa ay ku caan baxday laba barnaamij oo bulshada Soomaalida meel walba markaas ay ku noolyihiin aad u jecel yihiin oo kala ah Nalafiso iyo bandhiga Aamina badan oo Soomaali ah u istaageen in la yareeyo qabyaalada iyo dhibaatada ee markaas dhulka hooyo ay ku yeelatay. sidoo kale Aamina waxa ay ka mid tahay urur muslim ah magaalada Luton ka dhisan isla markaasna inta badan waxa uu doodaa xuquuqda ay leeyihiin hooyada Soomaalida. Aamina Muuse Weheliye waxa kale ay ka shaqeysaa radio
oo si voluntary ah aysan wax lacag aysan qaadanin sitamaankeena hal mar soo baxa ay leeyihiin qolooyin muslimiin ah iyadoo mar waliba ka hadasha dhibaatooyinka bulshada Soomaaliyeed isla markaasina difaacda Aamina Muuse Weheliye waxa ay ka mid tahay naadiga hal abuurka Soomaaliga ama iyo qalinayda Soomaalida ay raado xaruntoodana ay tahay magaalada Djibouti ee wadanka Djibouti isla markaasina laamo badan ku leh qaybaha kala duwan ee caalamka taariikhda Aamina runtii waa taariikh aad u dheer isla markaasina qofkii u baahday in uu akhriyo waqti dheer ku qaadanayso isla markaasina isku dayay in aan soo koobo runtii isla markaasina Aamina waxa ay ka tirsantahay akademiga gobolada ama af Soomaali ku hadla ururka lagu magacaabo AGA ee wadanka Ingiriiska Aamina Muuse Weheliye waxa ay dhawaan ama 26 bishii June bishii aynu soo dhaafnay loo magacaabay isla markaasina noqotay qof ka mid ah wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya isla markaasina loo magacaabay in ay noqoto agaasimaha guud ee TV-ga qaranka Somali National TV Aamina ma aha oo kaliya wariye telefishinada iyo raadiyaasha ka hadla isla markaasina Aamina waxa ay tahay qof wax qorta ama qora ah waxa ay curisaa sheekooyinka ribaayadaha filimada sidoo kale gabayada Aamina Muuse Weheliye runtii waxa ay ku caanbaxday in ay tahay qofta marka ay telefishinada ay soo istaagto ana laga caajisan isla markaasina hadaladeeda aad moodo qof waliba ama Soomaali ku hadla meel walba adduunku kaga nool yahay in uu aad u kaga hadlo isla markaasina dadka inta badan ay aad ay ugu qoslaan Aamina erayada aad u quruxda badan ee dadka ay Aamina Muuse Weheliye dhawaan waxa ay idin soo bandhigi doontaa buuggii ugu horeeyay oo ka hadla carruurta buuggaas oo aan filayno in carruur badan oo Soomaali ah oo ku nool wadankan Britain caalamka ay markaasi si wanaagsan ay kaga faa'iideysan doonaan Aamina waxa ay sameysay ururka lagu magacaabo Sawja oo ah ururka journalismka haweenka Soomaalida isla markaasina haatan waxa ay ka tahay qaybta xuquuqda insaanka iyo arrimaha dibadda Aamina Muuse Weheliye taariikhdeeda oo ah runtii mid aad u dheer waxaad moodaa dadku waxay isweydiiyaan intaan oo dhan ama shaqooyinka aad u tirada badan Aamina Muuse Weheliye ay qabatay sida uu soo gashay Aamina Muuse Weheliye ma aha wariye inta shay aan markaas aan ka hadlay lacag ku qaadata waxa laga yaabaa hal ka mid ah in ay mishaar ku qaadato isla markaasina waxaan idin sheegay Aamina Muuse Weheliye in ay tahay hooyo haysa 7 carruur ah todobada carruurta ay hayso 5 iyada ayaa dhashay 2na gabar la dhalatay ay markaas ay kaas isla markaasna ay kursatay Aamina Muuse Weheliye waxa ay markaasi ay baratay علم نفسك هاتنا واحد يكون جرتها جامعات كتالا ودن كان بريطن يلا مركز برتها شرعية يدن بيدا داوديال كنتي تاريخي أذكر ديرين مركز أنسكو دين أنسي جابن عن أسرة أوريو وتاريخي آمنة موسى وهلي وحن جعلان لها إن أكنتي أسيب نكسن مركزي أدخل سورة ويستان آمنة موسى وهلي وأخو هويم سوماليين آمنة موسى وهلي وقدرين كرتا إن هوية الصومالية أي أوداس إلى هاي هوية الصومالية يكونوا الوطن كان بريطن وهوية كدوان هويين ككلا عالم ككونوا وحسنا صولي هاي هوية الصومالية الوطن كان كونوا وها هي ساعرورتا إسلام مركز سنة جوبا بدن إيدا مركز مسؤول إكتا إيجيسو آمنة وحي نسيبه يرتي أنت ضبط على ساعرور إكوكوريس الوطن كان بريطن أو أي نلش إيدا وذكتها إن تاريخ دي آمنة موسى وهلي هالكاسة يوم سوقوبيا وحن عربائنا كتبوا هيبها البرنامج كنت أبي مكسنتين سيدا شرفت له أد مركز أودي ستين تاريخ دي أد كأول سنة إسلام مركز سنة ودي شد مدمر آمنة موسى وهلي أنا بقول البرنامج كي كسي جرا أيام واحد عندنا يا إن
أن برنامج كأن أوجد بو قيبه رمتي وقومي بسنة مدام وقت دمبنا لوجرو إن أن خطبة أن سيو ضد كأن مركز أوجد تلقلني إن أي كخيب خاتم مدام وقت واد ويري هاي إسلام مركز أنا سكودي دون إن خطبة لصور جابيو قفوا لبنو حنسين كرنا إلى 6 دقائق سجوا مركزي سوينا يسنك جبون كرا وحن كسر دوين يا قدوميها هوينك قرنك صومالية UK نظيفة علي حيدر أو مركز أنفيلا أي مركز يقيبها برشلة السفير كينا إسماعيل برا الكلينا الجاليرها كلامته وحا فرحب نوع عاوة إن أنا سقوط إيماننا هالكان إن أنا كسو وذا دوينه قعمة فرن أجسمها لانتا SNTV UK من المسوي لي أو qofaan halkan hadaladeeda iyo amaanteeda iyo bogaadinteeda aan ugu soo koobi karin waqtigu aad noogu yar waxaan leenahay dhammaan horta saxaafadda hambalyo ayaan si gaar u leeyahay waa takaliya ee baadiye iyo magaalo isku xiraysa meel walbaba caawana waxaan u jeedaa meesha waxa wada buuxa waa saxaafadii haweenkii laga batay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay saxaafadda ayadoo ay noo wada buuxda caawa taas oo aan leeyahay saxaafadda la'aanteed wax noo socon lahaa ma aysan jireen haddana walaashay maadaama ay dharka cad u qaadatay ciilka iyo dhibaatada iyo naxtinta dalkeeni caawa waxaan ugu talagalnaa haddaan haweenka qaranka nahay maadaama ay agaasimo nooga noqotay SNTV laanta UK inaan annaguna ugu darno marada buluuga ah ee calaamad u ah calankeena Soomaaliya marka walaashay waxaan rabaa caawa inaan guddoonsiiyo بلوغ يعدان كنا وهذا يبدأ على كينا الصوماليين qiiradayna lama soo koobi karo aad iyo aad ayayna u mahadsanyihiin dhammaan TV-yaasha nagala soo qayb galay ee caawa ku yimi in ay walaashood aamina muuse weheliye ay u sacbiyaan wariyaasha fanaaniinta oo qayladaan iyo karaami iyo fawsiifanka ay joogaan lama soo koobi karo dhammaan ururada kalenta ee arrimaha bulshada dhammaantiin waxaan idin leeyahay hambalyo farxad ay caawa noo tahay inaan halkan isugu wada imaano aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin hadalka siima wadi karin farxad bay iga caddahay caawa thank you aad iyo aad ayaad mahadsantahay waxaan rabaa inaan haatan nagu soo dhaweeyo Naciima علي حريد قدوميها مار and child oo runtii aad garan kartaan in hooyooyinka Soomaalida qaar ka mid ah u soo jeesteen in carruurta Soomaalida laga ilaaliyo dhibaatooyinka aadka u ba'an ee wadankan ku haysata Naciima waxa ay ka mid tahay hooyooyinku istaagay in xabsiyada carruurta Soomaalida ee tirada badan ay ku jirta in markaas laga badbaadiyo waxaan ka codsanaynaa rag badan oo goobta hadda ila joogan ay ka qayb qaataan isla markaasna ay haweenka ay la midoobaan sidii looga badbaadin lahaa dhibaatooyinka aadka u balaaran ay haysata carruurta Soomaalida السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ومد الصوماليات ميل كستي جوجتو عليكم السلام عليكم waxaan u mahadcelinayaa markuu wareys martida sharafta leh oo ka soo qayb gashay iyo cashartan caawa isugu imaanay way walaashay Aamina Weliye Aamina Muuse Weliye sida la sheegtay taariikhdii anaga waxba noo mareerin kick off waxa sheegayeen oo dhan asaga ayaa wada qaatay laakiin dhismale Aamina inta kuma soo koobi karno wax qabadkeedii iyo amaanteedii ma wax caawa kaliya ku qofka taariikhda ayaa qorto waa waxaan tirtirmin حق إلهي نداه كما صارنا وحقي قبض آمنه وهاي وقت كبرنا نتاعي وونه لسه وقت هي الخارجة إن السياسي سبل شديد وواحد هو قيراني أنا كنسيت وكلته وحنا نقف ككلية هو استعدي ومد الصومالي الأردن أنا ضمانتين إن أنا شقيناه وحاسمات قارب إلنا عاوية فديو ولكن إسماعيل محمد نور يدار الليبان القلول محارضة سفيرك إيو محله الشك روما إيو شكران يساعدي وأنت إلا صار شقيسي أو وقت جلسي أو إيدي حتى الماء وقاضي راشين قيبين هين أو اللي استعدت وقت جاي قالي جاي يجيني
qabtay qofka keligiisna wax ma qaban karo aaminana waxaan leenahay wala maanta garabka ayaan wada taaganahay inkastoo saxaafad dhan ay isku yimiyeen laakiin xaflad kale ayaa soo socoto insha Allah oo si gooni ah hooyo iyo aabbo wada doonay aamin u dhaxayn doonto ayaan soo wadnaa hadda aamin waxaan ku faraxsanahay media waa wax kaliya isgaarsiiyo haddaan leenahay media wixii oo dhan anaga il waa ka baxnay maantay ma dhaheen ciyaalkii beri maanta dhalinyarada ayay u istaagsantahay aamino farxadeena lama qiyaasi karo lamana soo koobi karo waxaana hadda jeclahay maadaama aamin ay tahay cagaar soo baxaayo doog yar oo cagaar inaan qoorta u suro walaashay aamino نعيم هذه ما تصنتهاي رنتي سيرة ونكسنين مركز أكجا هذا الشيء شقذا فلوس المركز بالشدة أبو هيسان أديك مركز تيم كل شقية نحن مدينة دنك هواينك أنا قبتي هذا الوحان وجود بيا دنك رجع ويجنا على بين عن فرصة الأنسية وحان وغرين عن سودويني هل كان دنجري عبد الرشيد سيد الرحمن الرحيم آدي وحان غير نوغلي دمر الصوماليات سيدا شرفت له ويعاو حفلة مسوقة مقابية سيدا هانا دمركو حفلة كلية سيدا الوشة غيبة أمان كوضا ورقبنا وحي قيب كاهاية هل كي قوني ماذا صوماليا لغو كاني وحرية قيب كولا كالكالين وحي قيب كاهاية المركي لباتة أمد الصوماليات ويكون عادي دبدا وكلية ما يقوده هو يعرورها هيان كل جين dumarku waxa weeyaan kuwa nagu leh xitaa maalin walba u dhimanayaan oo aad ogsoontiin iyagoo xaqaya jidadka in bam loo dhigo oo ay naftooda u horeen oo ay ciidamada qalabka sida ee naftooda u horaya wadanka sidii loo dejin lahaa qaranka Soomaaliyeed ay la garab taagan yihiin iyagoo ka tirsan haddana daweynta iyo cunto u karinta wax kasta waxa jirta nimanka nabadiinta haatan waxay ku soo hareen inay guryaha ku doontaan guriyada ay ku dhuumanayeen xitaa haatan raggii intay soo sheegi waayeen in dumarkii ay bilaabeen wiilashoodii ku jiray nimanka nabadiidka in ay magaligay astaantii qaranka Soomaaliyeed oo ah telefishinka qaranka Soomaaliyeed taagan ay ku ahayd London in ay maanta horseed ka ahaato aan filayna barnaamijyo kala duwan oo dhinacyada kala duwan oo wadankan gudihiisa iyo Soomaali weynba meel ay joogtaba ay ka daawanayso inay noo soo dhigi doonto ugu horeysa macallow wakaas fanaanki noogu weynaa halkan joogay al-ustaad maxamed karaama fanaanka aan caadiga ahayn heesaha heestuu khayradhaan ninkii tuuba ninkaas ugu horeysa waxaan leenahay waad salaamantihiin salaan kadib kulankan aan iskugu nimid aamino inay noqotay madaxa TV-ga qaranka wax aan la yaabayna maahan waa wax aan filayno wax ka sii weyn inay noqonayso ayaan sii rajaynaynaa runtii sababta aamino markaad ka sheekeynaysa taariikhdeeda waxay reebtaba basketballka inay ciyaar jirtaan oo laga yaabaa aamino runtii kacdoonka kooxda Belarus السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hadalkii waa la dhameeyay horta run ahaantii taariikhdii aamina iyo waxqabadkeedii iyo walaashay nolosheeda ilaa yaraanteedii saalim ayaa dhameeyay akhyaar kale oo fara badan oo hadalka iiga dambeyn doontaana way jirtaa kaliya waxaan isu soo taagay inaan u hambaliyeeyo xilka loo magacaabay walaashay aamina muuse weheliye annagu waxaan nahay saxaafad caawa dadka ugu badan ee goobta fadhiyaana waa saxafiyiin Soomaaliyeed saxaafaddu ma laha qabiil waa hal qura meel kastay joogaan dhibka iyaga iyo dheeftayaduba waa isku mid haddana waxaad moodaa inay saxaafadii ay noqotay dadka keliya la bartilmaameedsado ee lagu dilo maalin walba magaalada Muqdisho waxaan ka codsanaynaa dawladaha ka taliya meel kastoo ay Soomaalidu joogto in saxaafadda il gaar ah lagu eego waa dadka kaliya aan qabiil lahayn
waa dadka keliya ee farta qura ah waa dadka keliya ee waxna dhisi kara waxna dumin kara ma doonayo hadalka inaan sii dheereeyo waxaan u hambalyeynayay walaashay aamino muuse oo aan leeyahay xilka aad hayso ee lagu magacaabay ilaahay ha kuu fududeeyo annagana xilka ayaa nagashaan nahay bahda saxaafadda waan xaaji cabdiweli ayaa ka horreeyey aamina annaga oo ku faraxsan bay aaminana noogu biirtay awal waxaan ahayn dadka la iska dilayay aan cidba ogeyn waxaan idinka codsanayaa inaa ugu ducaysaan xilka loo dhiibay inuu ilaaha awoodda lagu fududeeyo waana aan gabar iyo wiil saan u leenahay gacanta isqabsan waxaan mahad gaara u celinayaa tiiviyaalka qaranka oo ummadda Soomaaliyeed u cadiya waxaan mid gaara u celinayaa oo ninka la yiraahdo Xuseen oo wadan ah ayaan u mahadcelinayaa oo mar walba ciidamada dhex tagay ciidamada Soomaaliyeed hambal ay u dirayaan guulaha waaweyn hadda gaaray oo shalay ugu dambaysan baydhabo dhul badan ka qabsaday guulo gurto oo xalay meedkooda ay wareen muslimiin walaalayaal maxaa noo ballama cadaalad iyo sinaan ilaahana waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay mid uu naga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu أبا علي شينو آديات ماتسيهاي خطبة رنتي عنوانada iyo wanaagga labadaba isku jirtay oo markaas u jeediyay ummadda Soomaalida siiba oo markaasi oo xusay in ummadda Soomaalida ay tahay dad walaalo ah oo markaas soo gashay gabagabadii barnaamijka ayaan joogaa waxaan rabaa si wadajir ah inaan halkan ugu waco bahda saxaafadda maadaama aan caawa aan runtii halkan u joogno xafladda qurxoon dhamantiin mudaniyo marwo madax iyo waliba dadka halkan isugu yimid ee sharafta leh waxa aan ku salaaminaa annaga oo ku hadlaynaa magaca Royal TV salaamta ummadda muslimka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh halkan isugu yimid oo halkan ay ugu qabanayeen haweenka qaranka wariyaheenna aanka noogu qaaliga mina weheliyey marnaba fanaanada anigu caawiga hore islaam maqlay mar haddii baan qotay waxaan jecelnahayba in ay kii nolosheeda noogu darto si aan ugu wada faa'iidaysano dhammaanteen anoo ku hadlaya magaca madaxda caawa shaafici iyo maryan iyo halkan ila jooga iyo madaxa Royal TV dhammaan shaqaalaha waxa aan leenahay aamina weheliye hambalyo soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع سنتي إلهي مهضر مكوالته وحن سلوكاته مع الإنجليزية كحفلة قيمها بدن سؤال قاسمي أنا بقول الله يا مقعد التلفزيون كستار تي في وحن لي هاي هنبليو هذا المهرين هديمك وأنا هذي وحجرت يا وأنا هذا أخوينا هذي waxay la tahay waxaan noo haray oo kaliya inay tahay hambalyo waxa leenahay hay adil musuuliye maadaama aysan ayadu lafteedu waxba helin oo intii xilahayd ay soo wada qabatay waxa kaliya oo dhimanay waxay caaw raacinayo inay ka shaqeyso midaynta saxafiyiinta wadankan UK taas ayaan u qaacinaya waxaan leeyahay iyadana waa ka sugaynaa inay nala garab gashay insha Allah waxaan sidoo kale taa asna u hambalyeynaya saaxiibkay Salim oo asna ku soo biiray telefishinka qaranka waxaan leeyahay السلام عليكم هذا منكم مديرنا وحي عديل المفراد ويلاتي على بعض صحافتي على على شرفته runtii waxaan halkan u imaanayaa maanta u habalyeynayna aamino mas'uuliye runtii aad aan ugu faraxsanahay xilkan ay qabtaan waxaan leenahay ilaahay la kala galo wili waxaan rajaynayaa sidoo uu ka dhawaajiyay ninkooda in wasiirka xafinta loo dhiibo TV بعض صحافته هذا يعني هو habalyeynayna aan ugu faraxsanahay صوبك معناها حاول حواي هبين فرحنا ريلي أدي أنا وفرحنا هاي أبرتي
معناها أنزع لها معناها حتى إذا الشيء معناها أنا أيضا هو شقين يا وعايز كل صو شقين الرواية دي حمر على البلدي كذا بلادي وحا حسوستا معناها إن حوغاير معناها جيران أيضا جيران كي حوغا سفي عن صحة زين مركز تاو حال الله مركز آمنوا معناها جيران كي محو صحة بدويس معناها ودالنا معناها دب محل عيسان مركز آمنوا وانقصوا غيلي معناها غيلي وحصو برت مركز حتى وحرم معناها إذا مسدي عمل هنا وغيلي معناها صحافظها معناها وطن كان كجرو معناها خاصة إنجليزكا إنه وضع مديسو وأي معناها شو كنتو إلى معناها كل واحد لنا تي في كان لنا أنا سومالي ناشونال تي في أنا نتاعي صحافته إيه سبورتي كل مكان هنا أنا أقول لك شو كيشون أنا قلنا كوي مارتي سكوا أول يقولوا ودجنا لا أول تجربنا أول يحيي الصومالية توس وصوت الصدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا حبيبة حجيني أو بيد أقصد قبل ولا شيء وحنا لين شنجر من بريو لا هي حلكة وجودي أنا بقول هذا المقع فلاني يمر صدحات يمر أفراد يمر شنعات وحنا أمين أمبليو طبعاً مرتشرف تعاو حفلة أن كسو قيم كشيء ومضح يمارك تذكر خيار وله وحن لا هذه هذا وما سنتين وإن كم هذا علينا إن مارك حفلة قروح البن ونصر بشين قبلها الصوماليين وحن لا هاي دمانتين الدوائر كاس ذهبية دقيقة كنتين ودعاء قبتين وحن وجه رج الصوماليين لو ما قاعد أقول بحي لو قيود ما هو كرسال الحلاوة يأذون قدره الحلاوة وانين بس كده بنفك له نفتي سيبه بدلها يا مرك واحد كله بدله وايد سبالك مرصوبة على إيراد وطوع قنيرة ويصو سعنا الحلاوة ويكاس أقول قدر أنا واحد وبحي رك ما رك تدك مساكين تها أو وبابا صنايع أول بتودي يقول لي تي كنت القرقر طلع يوم معلم وبما رك تدم تود جارك هاي جناية مرك واشكل ده غير الله هذا أدنى من سنة هذا يوم ما صدق وما دام هذا بدخول لي عروسته waxaa halka ilo wiil yar oo daaya qalfanaan deeko oo heesta ugu dambeeyay sameeyay wax maadranteeda oo dhima dhalaaqay adiga dhashay deeko adaa u shaqeeyay awoodka adiga ayaa iska maadaama uu fiisa heesti oo aad cadna ku bixin oo aad ilaahay gelisay oo waxba qarash aad weydii aad iyo uma satan iyo fanaaniintu ku wadana xanaaji intiis kulli aan karaamiyo heesta soo wadan iyo gaajactintii la joogto fanaaniinta oo ururka istaa سيبت كل مدلان كأني قاعد شيء ما تكلم يا نوكال